Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan karinayaa kimis iyo maraq hilib ari ah. Waxaan ka bilaabeynaa qasidda burka 2 koob iyo bar oo bur cad iyo bur madow ah. Kadibna qaado sonkor ah iyo saliid saytuun wax yar ah. Kadibna xogaa biyo ayaa lagu qasayaa. kadibna xoog ayaa loo rafaajinayaa saacad iyo barna meel baa la dhigayaa. Anigu waxaan isticmaalayaa maanta lug ari ah, laakiin si adigu hilib ari soo diyaarso wuxuu rabaa ahaade. Hilibka ayaan jarjarayaa oo soo diyaarinayaa. Hilibka ayaan dabka saarayaa, waxaana ku daraynaa biyo. Cusbo yar ayaan ku daraynaa iyo filfil. Kabsar caleena waan ku daraynaa. Intaa kadib 1 saac iyo bar ayaan dabka u deynaynaa. 1 saac iyo bar kadib saliid yar ayaan ku daraynaa. Waxaan soo diyaarsaday qudaartii aan ku dari lahaa suugada. Waxaan ku darayaa basal iyo barbarooni iyo yaanyo iyo karooto iyo toon. Waxaan ku daray maraq digaag. Kadibna xawaashka ruqiya iyo babrik iyo basbaas. Intaasaan isku walaaqay kadibna 10 daqiiqo ayaan daboolay. 10 daqiiqo kadib waxaan ku daray baradho iyo wax yar oo xawaasha. Ugu dambeyn basal ayaan ku daray. Kadib 20 daqiiqo ayaan u daayay. Hadda waxaan bilaabayaa sameyntii kimista. Qiyaasteeda ayaan goostay kadibna waan kuuskuusay. Kuuska intaan fidiyay iyo saliid yar dhexda ka marinayaa, waa dhammaantoodna saasan ku sameynayaa. Kadibna 4 gees ayaan u laalaabayaa. Geeskaas ayaan fidinayaa kadibna dubidii ayaan bilaabayaa. Dubidii kimistaan bilaabay wax yar saliidana waan marinayaa. Kimistii maraqii halkaas ay ku soo dhamaatay. Waxaan rabaa ii saara subscribe iyo like mahadsanidin.